goobtan oo hadda ah warbiyood ay ka cabaan dadka iyo xoolaha kuna taala duleedka xaafadda Buulow ee magaalada Xudur waxaa qoditaankeeda la bilaabay 1972 dhulka warta ay ku taalo waxay dadka taariikhda halkan haya ay sheegayaan inuu lahaa askari Yemeni ah oo Talyaaniga la socday isaga ayaa ku deeqay in warbiyood noqoto oo dadka iyo xoolaha ay ka cabaan laakiin inta aysan war noqon waxaa halkan laga qodi jiray ciida guryaha lagu dhiso kadib war ayay isu bedeshay sida uu sheegayo way joog Isxaaq Humow Aadan Darow oo 58 sano jir ah oo yaraantiisi ilaa hadda xoolo ka waraabista halkan wartan wali aan ku uga 77 dagaalkii Itoobiya Soomaaliya dhahay madilaha ku bahi askarta gobolkan hadeegdi ya horta qodmeedii hooji hay anta hor waliyaro baraakaleey ku dhudhoobada yarahay howlaha guud anagu qodmo ka balaawti marka askartada sheeysanta hadeegti Soomaaliya ahayti ma Itoobiya maayna ciidankii Soomaali madilaha ku nagadi ka bahayti dagaalkii madilaha ku nagadi ya haradaas la ka balaayo qodmeedii reedantii koor walaal ku bilawnay walwiin mahayna waliyaro baraakale ku dhudhoobada yar leeyahay madaas ka baadiye madaas arta ka badiga haradaas la balaayo qodmeed hoogje la ka balaayo baali la ka godaay sababtan godayna ma haytay ini magaaladan haradan la ku dhisa sababtee saasay araadiye haddaba kumuu ahaa Saalax Xabiibka wartan loogu magac daray waxaa ka sheekaynaya Cali Buule Batayow oo 77 sano jir ah isla markaana beer weyn oo warta agteeda ku lahaa Saalax Xabiib mararka qaar wax ka soo guran jiray afdal Saalax Xabiib dog oo antooy sheekh yahay oo sadaqaha nuula bahaw أنا وين دري بيرت نفتي كشجع أريتو سدال ليم عين بق بهاي عينب أو رسمه أريتو سدال ولي هقول داس ولي راسي أوقع خلاص هاي إنجت إنشان غير راسي شاهو بيرت روجسي أنا المشكلة كوجراي ما دولي راسي عينب كان يقعد هاي إنجت إدي إنكش dog madi masajidka baa sheegay raasi gagada dog masajid aadan dhigo saydeen beesada jeebe oo arag haye kayliye neeyere walaan may weydias balan tarafta baqa bihaayta dabnaan imaabuudad laakiin idkooy ku shaqeeyaan ama yaal suuhay ay ka aragnay raasi dog ay ka aragnay hagin gagad insheen yeeda liimadira ama ay nafka guraas musko indikaas ani musko waade qayb dhexe oo wartan ah waa halis oo mool ah waxa ku dhintay caruur iyo dad waaweyn oo dabaalanayay waa kan mar kale Cali Buule Batayow oo marka dhimashada halkan ku badatay isaga ka haray damaashaadka iyo waliba dabaalitaanka wartan yaraantiisi anka yaraan wali ka dhimatay orta lama gulwada noo ka dhimadeen aan gulwadana haay madidam wal ciyaal li oo kale ka dhimadeen adan ka yaraan tumun ilam lag oo kale ka dhimatay wari dhiigle madidam ba ero galay war dhiigle ba biin madidam warkin bedelinga warti Buulow dhiigle tiya leeyahay weli goobtan waa warbiyood dadka iyo xoolaha faa'iido ay ku qabaan sidoo kale waa meel laga qodayo ciida guryaha laga dhisto Xudur marka la joogo waa meel taariikh leh wartan jimcaha iyo xilliyada galbihii ah waa lagu dalxiis iyo damaashaad taga